iyadoo maanta ay ku beegneyd maalinta qaaxada adduunka ayaa wasiirka caafimaadka ee Puntland waxa uu maanta xariga ka jaray xarun cusub oo lagu daweynayo dadka qaba xanuunka qaaxada taas oo laga hirgeliyay degmada Baargaal ee gobolka Gaardafuu warbixintaas waxa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf oo ku sugan magaalada Garowe munaasabadan xariga laga jiray xarunta lagu daaweeyo cudurka qaaxada laguna xuseeyay maalinta qaaxada adduunka oo maanta ku beegan waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Gaardafuu Cabdiqaadir Yuusuf Maxamed duqa degmada Baargaal Abuukar Axmed Yuusuf odayaasha dhaqanka howlwadeenada caafimaadka haween iyo dadweyne kale Dr. Cali Xasan oo Cusmaan mareeyaha mashruuca xakamaynta qaaxada Puntland ayuu ka hadlay goobta ayaa ka waramay cudurkan isaga oo sidoo kale inaysan qarsan cudurka qaaxada oo ay tagaan xarumaha si looga daaweeyo marka maanta wacyigelinta ayaynu bareesha ka saarnaa oo ah in dadka TB-da saga shakisan oo 2 toddobaad iyo ka badan qufac isku arka inay xarunta tagaan xarunta baaritaankeedu waa lacag la'aan daawaduna waa lacag la'aan kaliya ina adigu tagtid oo is soo baartid ayay ku xiranta marka waxaan u maleynayaa safar dheer in la geli jiray oo boosaaso meesha ugu sokaysa boosaaso la aadi jiray kharash badan la geli jiray maxaa la dhahaa rafaad badan la mari jiray haddii marka gurigeennii laydinku keenay maanta barnaamijka saasa waxaan u maleynayaa wax ilaahay loogu mahadnaqo Istanbul baa waxay tiri waxaan rabnaa wixii lagaga soo leexday laamiga inaan halkan ka helno waa mid ka mid ah wixii dadka laamiga joogay halku dhiga sanadkan ayuu ku sheegay Dr. Cali Xasan oo Cusmaan inuu yahay raadinta bukaan qaba cudurka qaaxada si looga daaweeyo loona helo qof caafimaad qaba maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka Gaardafuu waxay goobta ku soo dhaweeyeen wasiirka sidoo kalena waxay u soo gudbiyeen baahiyo caafimaad oo deegaanku tabayo marka waxa weey tiibishada wax weyn ma ahan sidaan ay u sheegnay oo dhaqaatiirtan hore ay u sheegeen waa wax yar oo basiid ah laakiin marka qarsatidu uu qarsanaya xaqiiqdi oo ummadoo dhan reerku ka burburin oo darisku burburin oo shacabku burburin insha Allah intaan ka la gaarin qofka binaadamka kulay waxa weey wasiirkii iyo dhaqaatiirta kale way sheegay wasiirkana way iga dambeyn doonaa waa wax fudud baahida caafimaadka waxaan u baahanahay isbitaal guud haddii xiji waa aragtay buurtaas ay u jeedid oo dhan waxa degan dad badan dadka magaalada ku nool 3 jibaarkood baa ku nool xoolo dhaqato xiji baa ku yaala waa meelaha maarta amuudka u ah dhaqaalaha magaalada marka dad amuudkaas aanu meesha ku hayno dadkii haday ka soo dhacaan ama dhibaato ay ku timaad accident waxa imaadaan MCH-ka badaas oo dadku iyagu u risaaqo tagaan haddii wax incident ku soo dhaco waxa loo yimaado MCH-ka wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland oo munaasabada soo xiray ayaa sharaxay habka loo kala qaado cudurka qaaxada iyo inuu yahay cudur si fudud loo daweyn karo haddii daawada la joogteeyo wasiireen ayaa sheegay in wasaaraddu ilgaara ku eegi doonto goobaha laamiga ka durugsan sida deegaanka Baargaal isagoona ballan qaaday inaysan dadaal kala hari doonin sidii loogu istaagi lahaa wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada farxsanayna maanta Baargaal joogo aan kala qabqaato maalinta xuska adduunku isku raacay in la diro bahalka cadawga nagu ah waa cayayaanka bakteeriyada malaariyada TB-da sababa magac bay leedahay waxa la yiraahdaa Mycobacterium tuberculosis haddii aan maanta ku soo guuleysanay wasaaradii iyo gobolkii iyo degmadii iyo bahdii caafimaadka iyo dawladii in xaruntaas aanu halkan ka dhisno ogaada gobolkan wuxuu ka mid ahaa goboladii waagii 18 gobol dawladdu ay maamuleysay Soomaaliya haysatay wuxuu ka mid ahaa gobolka labaad oo ugu TB-da badan Soomaaliya waa gobolkii bari la dhihi jiray maanta wuxuu yahay gobolka ugu TB-da badan Puntland 8 qof oo la baraa hal qof laga helay macnuhu ma aha dadku inuu caafimaad qabo bahalkan aad buu noogu faafsan yahay baadiyaheennii buu ku faafsan yahay meelaha fogfog aan la gaari karin buu ku faafsan yahay waa inaan ka hortagnaa ciyaar kubadda cagta ayaa galabta lagu wadaa inay ka dhacdo degmada Baargaal oo lagu maamuusayo xuska maalinta qaaxada adduunka waxaana sidoo kale ciyaar munaasabadan lagu maamuusayo shalay lagu qabtay degmada isku shuban Maxamed Saciid Somali Channel Garowe.